اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. على الحبيب اتهامي. لا تجد أنوارا غزيرة في ذي الدنا والقيام، ففيه الروح النفوس فقم أخي باهتمامي. وسلم دواما. الله وسلم دواما. الله وسلم دواما. على الحبيب اتهامي. الله فكم دليل حكاه به أهيل المقام، وصام يوم الاثنين شكرا لمولى السلام. وسلم دواما. الله وسلم دواما. الله وسلم دواما. على الحبيب اتهامي. الله فكم دليل حكاه به أهيل المقام، وصام يوم الاثنين شكرا لمولى السلام. وسلم دواما. اللهم صل على محمد. وسلم دواما. اللهم صل على نبينا محمد. وسلم دواما. على الحبيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، إن شاء الله أحبابنا الكرام، waxaanu soo gaarnay qaybtii muxaadarada ama kelimaadka ay noo jeedinayaan mashaaikhdeenna ajilada ah oo xafladda tan ka soo qayb galay. dhab ahaantii waa sharaf weyn inaannu caawa ka soo qayb galno oo isugu imaanno magaalada tan, xaflada tan barakaysan, innagoo u dabaaldegayna, u xafladaynayna, tacdiiminayna, muujinayna dhalashada iyo sharafta nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam, daahirinayna faraxeenna iyo dareenkeenna ku aadan mawlidka rasuulkeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa farxad aad iyo aad u weynin badan weeye. alxamdu lilah, waa nicma, wamaa tawfiiqiya ila billaah. waafajinta ilaahay baa iska leh. ilaahay baa iska leh. ilaahay subxaanahu wa tacaala cidduu doono towfiiqdu ilaahay waafajiyaa oo wuxuu ka dhigaa ahlu towfiiq. waman shaaa khadalahu, duulkuu doonana ilaahay wuxuu ka dhigaa ahla alkhidlaan oo wuxuu ka dhigaa ahla alxirmaan walciyaadu billaah. marka towfiiqda ilaahay waxaa ka mid ah, naxariista ilaahay waxaa ka mid ah inaannu caawa u dabaaldegayno nabigeenni raxmadda ahaa calayhi salaatu wasalaam, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yihi markii uu ammaanayey wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin calayhi afdal الsalawaati watasliim. ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka, ma aanan ku dirin nabi moxamedow calayhi salaatu wasalaam ilaa raxma, adigoo naxariisa mooye. waxaanu kaa dhignay naxariis lilcaalamiin, makhluuqaadka oo dhan. dee caalam maxaa la yihahda? alcaalamu ismun lima siwa allah. ilaahay waxay ka soo haray oo makhluuqaada oo aan la kala soocin, raxmadda waxa u ah waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam. huwa raxmatun lilcawaalim alculya, caalamyaalka sare oo dhan waxaa naxariis u ah nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam. wa raxmatun lilcawaalim asufla, caalamyaalka hooseeya oo dhan naxariis buu u yahay. wa raxmatun liahli alcaqli waalcilmi, inta cuqalada ah oo caalimiinta ah naxariis buu yahay nabigeena suban calayhi salaatu wasalaam.
ورحمة للعالم ذي الروح عالم كنفط أصاحبك متك النفط لهين متك جامدك وحصل نمبر مركا ورحمة أو مطلقة واي يا نبي نو فسر عليه الصلاة والسلام وحجري أنو وحنا هاي بير رحمة مهداة نحريس لسوا هديي أو إلهي حقي سلقة سوا هديي يعني هاي بير عند الله سوا هديي أحد كوا هديي يا ويا إلهي وحلا سوا هديي ومحي نبي نصوبا عليه الصلاة والسلام رحمة دي إلهي عند الله سوا هديي أنا يا ويا النجا هديده أركان بالله سما شيء هدي له هديين يا أركان بالله مهدي قفك وحديين مهدى به شيء له هديين مهدى إليه شيء له هديين فقي ولا يقنا باب الهدية سما يا مرك أحد لسوا هديين ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أحد كهدية هديين ورب العزة dadka loo hadiyeeyana waa inaga oo ah ummadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka hadii wax lagu soo hadiyeeyo maxaa laga doonayaa hadiyada in aqbasho ya aqbal sanaga lama rabo ya marka inaanu aqbalno waa insha Allah ya hadiyadaas ilaahay weyninka badan oo ilaahay noo soo hadiyeeyay bilaash nabiga uu ma sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri inma ana rahmatun muhdatun حديث صحيح ويه أئمة ورثي وحا كمدا الإمام حاكم يا كمدا يا أئمة كله حديث وحا مقبول ويه وحجر النبي نصوبا عليه الصلاة والسلام وحكى لميه أنا وحانا هاي رحمة هي النعمة لسوها ديايي وإلهي حقي سلقى سوها ديايي إلهي ونكود دقيق النبي عليه الصلاة والسلام إذن فهو منة كبرى ومن وين بدنوا إلهي بقرآن كده حديث النووي شاقه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إلهي سبحانه وتعالى منه النسيي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثديسو من نويان إيجاد كيسو من نويان إرسالك إلهي ونصر دري من نويان من نظرنا وحل إلى هذا وقلد إلهي النعمة إلهي وحيري مشايخنا الشيخ هذا سيدي الشيخ عبد الرحمن الزيلعي وحيري رحمة الله تعالى عليه هو النعمة الكبرى والرحمة التي تجلى بها الرحمن للخلق أجمعين يا هذا القرآن كيف فسرها حديث النبي فسرها عليه الصلاة والسلام يا وحيري النبي نصبا عليه الصلاة والسلام قصيدتي عينيده اللي يراوي او نبيga uu ku amaanay ya oo boqol bayd ah oo suubanaha uu ku tilmaamay عليه الصلاه والسلام oo markuu amaano u yiri wama niltu fi madhi lahu qadra asbu'in bir wa amaana nabi maxamed عليه الصلاه والسلام qasiidadaas aan ku amaanay laakiin amaanta nabiga hadii insaan lagu sooray amaanta nabiga عليه الصلاه والسلام لو جسدناها في صوره انسان بني آدم سورة دي سوكال هدان نكدقنا بني آدم كحبناها أوير وحا كمدا فر تحبين يرويان مركي جيرك بني آدم كالله فيري سواح يرما يا انت سوكال أمانة النبي كما قارين عليه الصلاة والسلام يا نمن جاهلين الماشان اللي سوى تاقيين أمانة لقبدي النبي محمد ولقبدي أمانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حد كسيبا لدافيي يا وايهاي horta dhaafinta oo xadka nabiga la dhaafinaya hanoo dambeeyay xadka nabiga horta aduu ma gaarsiis ya waxaan u baahanahay qof yiraahda xadkii uu nabi maxamed iyo maqaamkii uu lahaa iyo sharafkii uu lahaa iyo qadarkii uu lahaa ana buuxiyay oo amaanay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam amaantiisii xaqiiqadeeda dhamaystiray oo maqaamkii uu lahaa gaarsiiya loo baahan yahay ya aymada islaamka kulligoodba markaa fiiriso waxay leeyihiin ya waxaanu gudanaynaa xuquuqda nabiga qaar ka mid ah calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed xuquuqdiisa ma gudan karno laakiin waxaanu gudanaynaa sharafkiisa
iyo qadarkiisa iyo maqaamkiisa wax yaroo ka mida un baanu tilmaamaynaa ay leeyihin culimmada dhan ya marka tawfiiq allahna waafajiyo waa kii lahaa wuxuu yidhi sheekha sarsari baa la yidhahdaa alimaamu sarsari waa lagu sheegaa aimo badanna waa loo nisbeeyaa wuxuu yidhi araa kula madxin fi الnabiyi muqasaran araa waxaan arkaa buu yidhi kula madxin ammaan kasta hadda waa nin xaafid uga wade araa kula madxin fi الnabiyi muqasaran waxaa arkaa buu yidhi ammaan kasta qasiido kastoo la dejiyey ama si kastoo nebi maxamed loo ammaanay nadmi iyo nasriba wax gaaban un weeyaan xaqii nabiga uu lahaa calayhi salaatu wasalaam ma oofsan karo waxaa ku sugan waxaa la yidhahda taqsiir gobodfal soo gaabsasho yaa ku sugan wain baalaqa almuthni calayhi waakthara qofka ha xeel dheeraado si kasta fasiixa u ahaado balaaqa ha yeesho nebi maxamed nasri ha ku ammaano nadmi ha ku ammaano siiradiisa ha ka sheekeeyo kutuba ha ka alifo wax yar un way markii loo fiiriyo baddaas aan xeebta lahayn oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ya nin sheekhaha wuxuu igu sheekeeyey wuxuu yidhi salliga nabigaan damcay buu yidhi inaan siiqooyin ka tixo markaasaan kitaab qoray kitaabkaas aan qoray wuxuu ahaa buu yidhi 1,000 warqadood ilaa 1,000 warqadood kitaab ah yaan sanifuu yidhi oo ah ka kooban siiqooyinka salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ii furay buu yidhi fadxi baa la ii siiyey markaasaan nabiga ammaanay oo siiqo salawaad dejiyey oo siiqooyin nadmi leh oo nasri leh yaan daldalay buu yidhi markaan dhammeeyey oo aan isleeyahay kitaabkii ha la daabaco oo aan saxay nabiga ii yimid buu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabigaan arkay buu yidhi markaasuu nabiga wuxuu yidhi buu yidhi meeshaa fiiri bad weeyaan buu yidhi ya saaba u fiiri waxaan arkay buu yidhi meel bad ahaan arkay buu yidhi sheekh nool way hadda uu nool yahay sheekh oo mashaayikhda dariiqada ka mid oo ahlullaahi oo caalim oo caarif oo maasha allah alkhayra wanaag aan ku ognahay waay xagga fiiri buu yidhi waa fiiriye saa wuxuu yidhi bad weeyaan buu yidhi marka wuxuu yidhi bad baan arkay buu yidhi baddii saasaan u fiiriyey buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi nabiga fiiri baddaas fiiri buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baddii baan saa u fiiriyey buu yidhi markaasuu wuxuu soo qaaday yidhi cirbad buu nabiga jeebkiisa ka soo bixiyey cirbadii buu saa u daray buu nabiga calayhi salaatu wasalaam kor buu u qaaday markaasuu yidhi fiiri cirbadan biyaha saaran iyo biyaha badda kee badan markaasaan waxa yaa rasuulallahi cirbadan biyaheeda wax yar weeyaan badduna aad bay u fara badan tahay biyaheeda markaasuu wuxuu yidhi laga bilaabo maalinkii ilaahay i khalqay maalinkii ilaahay i abuuray iyo maanta intii i ammaantay aniga sharafkayga iyo fadligayga intaasoo kale ka qaadeenuu yidhi ya ka soo bilow buu yidhi maalinkii ilaahay i khalqay ka soo bilow ilaa maanta la joogo wixii ammaanay ya oo ambiye ilaahay lahaa oo awliye ilaahay lahaa oo culummo lahaa oo ahlu fadli lahaa oo saxaabo lahaa kulli way soo gelayaan wuxuu yidhi aniga miqdaarka ilaahay i siiyey iyo fadliga ilaahay i siiyey iyo sharafka ilaahay i siiyey cirbaddaa biyahay soo qaaday ma dhammuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ya waxaad yeelaysaa buu yidhi siiqooyinkan faraha badan inta iska daysid hal siiqaa baan ku siinayaa buu yidhi oo jaamico ah oo kitaabkan waxa ku yaalloo dhan macaanideeda kulminaysa siiqadaas akhri ayadaa kuu fudud ummaddana ayadaa u fudud buu yidhi weli naxariistii way nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ya diiwaankan dhan oo kunka baydahoo la akhrinayo ummaddu ay ku feerajabayso oo wixii oo dhan ba nabiga inta u soo duubay buu wuxuu yidhi hal salli baan kugu soo koobayaa buu yidhi wixii fadaa'il ahaa wixii macaani ahaa wixii kamaalaad ahaa salligaasay ku jiraan buu yidhi intaas sheegtoo dhan salligiibu nabiga ii meeriyu yidhi markaasaan bartay buu yidhi salligiibuu ku wardiyaa sheekha isagaa dadkana faraa khayr allah siiyo marka miqdaarka nabi maxamed calayhi salaatu wasalam wax la soo koobi kara maaha ilaahay baaba yidhi وكان فضل الله عليك عظيما قال تبارك وتعالى إن فضله عليك كبيرا